habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waa Cusmaan Cabdi Xasan qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxay kala yihiin laba askari ayaa ku dhimatay dad rayadana way ku dhaawacmeen qarax saaka aroortii ka dhacay magaalada Muqdisho warbixin dheeraad ah ayaynu idinkaga haynaa wararkeena kalena waxa kamid ah kadib rabshado iyo sheegasho lagu celceliyay in doorashada wax la isdaba mariyay Donald Trump wuxuu ku adkaysanayaa in si nabad ah xukunka loogu wareejinayo Joe Biden 2 toddobaad gudahood taasi taageerayaashiisu ma dhageysanayaan baarlamaanka Uganda oo ansixiyay qaynuun lagu samaynayo 5 kursi oo gaar ah toddobaadka dambe marka ugu horeysa ayaa la dooranayaa saameyn intee leeg ayuu khilaafka khaliijka ee la xaliyay ku yeeshay arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha dalalka Carabta gaar ahaan Soomaaliya waa qodobka dooda Khamiista caawa aynu ku eegayno kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka laba askari ayaa ku dhimatay dad rayid ana way ku dhaawacmeen qarax saaka aroortii ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska Taleex ee degmada Hodan qaraxa ayaa waxa ka badbaaday taliyaha ciidanka asluubta Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo la socday gawaarida qaraxa la beegsaday beela sheego ayaa Muqdisho ka soo dirtay warbixintan waxaana suuragal ah inay ku jiraan muuqaalo dadka qaar ay dhibsadaan qaraxan oo ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa saaka aroortii hore waxaa lala egtay ciidamo ka tirsan kuwa asluubta Soomaaliyeed waxaana jira khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira waxaana qaraxa uu ka dhacay agagaarka madaxtooyadii hore ee Cabdilqaasim halkaasi oo ay marayeen ciidanka dawladda oo qaraxa la beegtay inta la xaqiijiyay laba askari oo ciidamada dawladda ka tirsan ayaa ku dhimatay waxaana ku dhaawacmay dad shacab ah oo goobta uu qaraxa ka dhacay ku sugnaa tirada dhaawacaas ayaa ilaa hadda aan la xaqiijin bartilmaameedku wuxuu ahaa taliyaha ciidanka asluubta Mahad Cabdiraxmaan Aadan kaas oo la socday gawaarida qaraxa la beegsaday wuu ka badbaaday waxna ma soo gaarin miina dagarqabayaasha ay jidka dhigeen ayaa ku soo booday gaari ciidanka asluubta ay leeyihiin waxaa meesha dhibaato yar ka dhacday marka waxaan leenahay inta dhimatana alla u naxariisto inta dhaawacna alla caafiyo gaariga cabdibilaha waxaa ka geeriyooday laba askari sida warka ku helnay darawalkii dhaawac lagu qaaday dib ka geeriyooday iyo hal askari oo marka hore geeriyooday goor dambe ayay al-shabaab sheegteen mas'uuliyadda qaraxaasi ee saaka la beegsaday ciidamada asluubta Soomaaliyeed waxaana xusid mudan in 2 maalmood ka hor qarax noocan oo kale ah la beegsaday gaariga afhayeenka booliiska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali laakiin wuu ka badbaaday qaraxa iyadoo doorashooyinka Soomaaliya ay ka harsan yihiin waqti yar ayay dawladda Soomaaliya wuxuu wali culays ka haystaa dagaalka ay kula jirto al-shabaab iyadoo waliba taageero ka helayso ciidamada AMISOM ee ku sugan dalka beela sheego BBC Muqdisho muddo 2 isbuuc ka hor waqtigii lagu waday in si nabadgelyo ah uu Donald Trump xilka ugu wareejiyo madaxweynaha la doortay Joe Biden ayuu Donald Trump iminka qof waliba u xaqiijiyay intaasi ay dhici doonto mooryaantana ku xoomay dhismaha baarlamaankan ay yihiin koox yar oo gaar ah balse malaayiin shacabka Mareykanka ah oo Donald Trump taageersan ay iyaga oo qaldan haddana qaba fakarka ah in doorashada la xaday Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa warbixintan inoo haya halkani waa Mareykanka iyo 2021 wadan hormuud u ahaa dimuqraadiyadda adduunka laakiin dimuqraadiyadiisii la hareeyay 2 toddobaad baa ka dhiman xil wareejinta lagu wado in si nabdoon madaxweynaha cusub xilka uu kula wareego sidii dhici jirtay 4 sano oo kasta ilaa bilowgii qarnigii 19aad 24 saac ee u dambeeyay cabsi weyn ay ku abuurtay Amerikaan badan laakiin Donald Trump waxa uu sheegay in wax laga baqaa aanay jirin isagoo tweet ku diray ku-xigeenkiisa shaqaalaha aqalka cad oo uu yiri xil wareejin nabada ayaa dhici doonta The president invited me. madaxweynaha ayaa imarti qaaday marka waa inaan imaadaa ma imaan karin laakiin muhiim ayay ahayd It's too important not to come.
sida charles 74 milyan oo qof ayaa u codeeyey donald trump qaar badan oo ka midana uma arkaan in waxani uu yahay weerar lagu qaaday dimuqraadiyadda balse ficil wadaninimo taasna waa fikrad awood badan oo xitaa madaxweynuhu aanu xakamayn karin wuxuu si been ah u sheeganayaa in doorashada lagu shubtay xitaa iyadoo ay 62 maxkamadood ka diideen oo uu kiciyey taageerayaashiisa hadda ma awoodi doonaa inuu guryaha u kala diro isagoo weydiistay in xanaaq ay muujiyaan madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence isagu ma ridin Donald Trump laakiin waa uu iska fogeeyey The violence was quelled. The capital is secured. rabshadaha waa la soo afjaray baarlamaanku waa ammaan shaqada shacabkuna way soconaysaa waana cambaaraynaynaa rabshadihii halkan ka dhacay taageerayaal badan oo Trump ayaa u xanaaqsan sida cad ee madaxweynaha uga hor yimid laakiin haddii Trump aanu wax xukumi karin labada toddobaad ee soo socota ilaa uu ka tago markaa Pence ayaa ah xalka kaliya dhinaca kale Koongareeska ayaa dhexdiisa hogaamiyaal cusub ay isku haystaan iyagoo isugu qaadqaadaya taageerada weyn ee u hartay Trump haddii aanu awoodin isagu inuu si fudud wax u xukumo wax kasta oo dhaca 14 maalmood ee soo socota 25 Janaayo kadib Joe Biden ayay u taallaa inuu dejiyo laakiin 2 toddobaad waa waqti dheer siyaasadda marka la eego madaxweynaha la doortay waxa uu yidhi waxani ma ahan Maraykankii aan naqaanay laakiin qaar badan ayaa ku khilaafsan waxaana xaqiiqdii ay tahay in Maraykanku yahay waxa maanta uu noqday bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ka digtay tirada kordhaysa ee COVID-19 ee dalal badan oo Yurub ah WHO mas'uuliyiintoodu waxay sheegeen in tallaabooyinka caafimaadka la dardargeliyay si wax looga qabto faafitaanka nooc cusub ee viruska ee laga helay UK hadda waxa ay taageeraysaa talada saynisyahanada ee ah in dib loo dhigo ilaa iyo 6 toddobaad inta u dhaxaysa kuurooyinka talaalka Pfizer mas'uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 6 askari la dilay kadib markii xagjiriinta Taliban ay weerareen saldhig ammaan oo ku yaala gobolka waqooyi ee Kunduz dhinaca kale gobolka Helmand ee koonfurta ayay mas'uuliyiintu sheegeen in ugu yaraan 5 ruux duqeyn cirka ah lagu dilay dagaalkan socda ayaa ku soo aadaya iyadoo wada xaajood nabadeed oo ay dawladda Qatar iyo Taliban waa dawladda iyo Talibanba ay dib uga bilaabeen Dooxa kadib 3 maalmood oo ay hakadeen in ka badan 1,000 qof oo Guatemala u dhashay ayay dalkooda u celiyeen Maraykanka kadib markii la masaafuriyay ilaa iyo markii lagu dhawaaqay qaynuuno socdaalka oo adag bishii Maarch waxay mas'uuliyiinta Maraykanku dadejinayaan celinta carruurta aan cidi la socon iyo qoysaskooda ee ka soo jeeda dalalka Guatemala, El Salvador iyo Honduras Uganda waa dal da'yar da'da dadkaasina celcelis ahaan waxa lagu qiyaasaa 15.5 sano laakiin waxa la yaabka ayaa ah in sharci dejiyaashu ay yihiin dad waayeel ah marka waa suuragal in loo qaato in baarlamaanka uu u danaynayo badqabka waayeelka sanadkii 2019 baarlamaanka Uganda waxa uu soo saaray sharci lagu abuurayo 5 kursi oo gaar ah oo matalaya gobol kasta oo dalka ka mid ah Samira Jaamac ayaa soo jeedinaysa magacaygu waa Francis Xavier waxaan jiraa 77 sano magacaygu waa Namusoke waxaan ahay 71 sano jir waxa kaliya ee ay ka siman yihiin ayaa ah inay isku da' yihiin qaar badan oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada Margaret Namusoke ayaa dib u habeyn ku samaynaysa bacaha balaastiga ah si ay u samayso dambiilo isla markaana ay u hesho lacagaha iskuulka ay uga bixinayso ilmaha ay ayeeyada u tahay dood noocee ah ayuu qaban doonaa 80 jir kuwani waa isla dadka aan ka aragno TV-ga iyagoo hurda waxaan ka aragnaa kaamirooyinka iyadoo doodu socoto waxaan isweydiiyaa muxuu qofkani u tagay baarlamaanka dad badan oo waayeel ah oo reer Uganda ah ma haystaan nooc kasta oo ilaalin bulsho ah sidaas darteed waxay ku tiirsan yihiin qoysaskooda ama hawshooda xitaa markay gaboobaan tani waa mid ka mid ah
arrimaha ay u doodayaasha matalaadooda baarlamanka ka rajaynayaan in wax laga qabto. Giga waa mid ka mid ah ilaa 7% dadka waayeelka ah ee heli kara lacagta howlgabka. Mashruuca digaaga wuxuu kaabaa dadka howlaha caafimaadka ka shaqaynayay waxayna bil walba qaataan $270, balse taasi kuma filna in ay daboosho baahida Gita. marka dadka waayeelka ahi ay jiradaan kharashka daaweynta ayaa aad u badan. tusaale ahaan dhiigkarka, sonkorowga, dhammaantood waxay u baahan yihiin daaweyn takhasus gaar ah leh oo aad u qaali ah. waxaa sanadkii 2015 la aasaasay mashruuc deeq dowladeed oo ah in $7 bishii lagu caawiyo dadka waayeelka ah ayaa haatan gaaraysa in ka badan 300,000 oo qof guud ahaan dalka. dowladda waxaa inta badan maamula dadka waayeelka ah waddan celcelis ahaan bulshadiisa ay u badan yihiin 15 sano jir. kuwa u tartamaya kuraasta baarlamanka si ay u matalaan waayeelka waxay yidhaahdaan asxaabtooda wax kama qaban. waxaan isku dayi doonaa inaan baarlamanka u soo bandhigo biil xubin gaar ah u ololeeya. asxaabteyda kale waxaan ka rajaynayaa inay taageeraan si dowladda ay u bilowdo barnaamij ay ugu hagaajinayso musqulo ku habboon dadka da'da ah. baarlamaan xaraga leh oo gaboobay ayaa haatan yeelan doona 5 mudane oo dheeri ah, laakiin dooda ku saabsan sababta xukuumadda iyo baarlamaankii horeba ay uga buuxeen dad waayeel ah isla markaana aysan ku filneen inay qabtaan arrimaha iyaga ku saabsan ayaa weli taagan. weli waxaa inoo soo socda caawad qaybta dambe ku daawanaysaan saamayn intee leeg ayuu khilaafka khaliijka ee la xaliyey ku yeeshay arrimaha siyaasadda. inta aanan gelin waxaa nagala xiriiri kartaan BBC Somali Facebook Somali iyo BBC Somali Twitter Instagram. weli waxaa inoo soo socda qaybta dambe ku daawan doontaan saamayn intee leeg ayuu khilaafka la xaliyey ee khaliijka ku yeeshay arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha dalalka carabta gaar ahaan Soomaaliya. waa qodobka dooda caawa Khamiista.
weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka aan idin xusuusiyo qodobada wararkeenna ugu waaweyn. laba askari ayaa ku dhintay dad rayid ahna way ku dhaawacmeen qarax saaka aroortii ka dhacay magaalada Muqdisho. kadib rabshado iyo sheegasho lagu celceliyay in doorashada wax la isdabamariyay, Donald Trump wuxuu ku adkaysanayaa in si nabad ah xukunka loogu wareejinayo Joe Biden 2 toddobaad gudahood. taasi taageerayaashiisu ma dhagaysanayaan. toddobaadkan bilowgiisii waxaa dib loo soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay Qatar iyo 4 dal oo Carbeed, kuwaasi oo cunaqabatayn ku soo rogay Qatar 3 sano ka hor. Sacuudi Arabiya, Imaaraadka, Bahrain iyo Masar ayaa 2017 cunaqabatayn saaray, xiriirkana u jaray Qatar iyagoo ku eedeeyay inay taageero u fidiso kooxo argagixiso ah. waxay kaloo ku soo rogeen shuruudo ilaa iyo 13 gaaray oo ay ka mid yihiin Qatar inay joojiso iskaashiga dhaqaale ay la leedahay Iran iyo inay hawada ka saarto telefishinka Al Jazeera. Qatar eedeymahaasi way beenisay, shuruudahana waxba kama fulin. dhexdhexaadiyaal ka socday Kuwait iyo Mareykanka ayaa muddooyinkii u dambeeyay waday dadaallo lagu soo afjarayo khilaafka labada dhinac, kuwaasi oo iminka lagu guuleystay. haddaba saameyn intee leeg ayuu khilaafkan ku yeeshay arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha dalalka Carabta, gaar ahaan Soomaaliya? waa qodobka aan caawa doodeenna Khamiista ku eegayno. barnaamijkana waxaa igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Cayte oo ka tirsan macadka Heritage, horena u soo ahaa wasiirkii qorsheynta ee dowladda Soomaaliya Garowe ayuu hadda qadka toos kaga jira, iyo Cumar Idris oo ahaa safiirkii Soomaaliya Qatar u fadhiyay Muqdisho ayuuna isagana qadka kaga jira. labaduba Cabdiraxmaan iyo Cumar ba soo dhawaada. Cabdiraxmaan ayaan ku hormarayaa. Cabdiraxmaan, 3 sano iyo dheeraad kadib khilaafkii iminka waa la xaliyay oo sida muuqata wadamadii waa heshiina ayay leeyihiin. muxuu khilaafkaasi Carab uga burburay? maxaa dhibaato oo ka soo gaaray? saameyn enkee ayuuna siyaasad iyo dhaqaale iyo intaba uu ku yeeshay haddaad dib u eegto Cabdiraxmaan? runtii khilaafkaasi dalalka Carbeed si guud gaar ahaan khaliijka wax badan uga kharibmay oo ay ugu horeyso dabcan markii ay dad walaalo ah oo ehela diraan waxay keenaysaa dagaalkoodu waa ka foolxun yahay dagaalada kale. marka runtii dagaalkoodu waa isku fogaadeen, waxayna taas saameynteeda laga dareemay dalalka Carabta oo dhan. jaamacadda Carabti iyo ururka GCC la yiraahdo ama gacanka ay ku midaysan yihiin labaduba wayna foobeen. waxaa kala foobay xiriirro kale adduunka oo dhan ay la lahaayeen. marka xagga diblomaasiyaddana dhibaato weyn ka soo gaartay. xagga dhaqaalahana dabcan isu socodkii 5taas dal, Qatar oo meela iyo 4 kale oo meela oo aad sheegto, Masar iyo Bahrain iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga ah, waxa loo wixii dhaqaalaha horumar jirna waa istaageen, isu socodka dadkoodu waa istaageen. iyadana runtii balaayiin dollar ayaa uga luntay. intaas waxaa sii dheer, waxaa ka faa'iidaystay oo dalaalay dalalkaas shirkado waaweyn oo Mareykan u badan oo ay inta kala kireysteen ay malaayiin dollar, boqolaal milyan oo dollar runtii ku bixinayaan si ay isaga iibiyaan aragtida dadka Mareykanka iyo dowladda Mareykanka. marka runtii qasaaradu marka ugu dambeysa iyaga unbay kusoo laabataa la dhihi karaa. waa tahay Cabdiraxmaan. Cumar Idris waan filaynaa inuu nagu soo biirayo. Cabdiraxmaan, adiga wasiirkii Soomaaliya qorsheynta ayaad ahayd, marka siyaasadda Soomaaliya iyo midda Carabtana wax badan ayaad ka warhaysaa. arrintii ahayd dhexdhexaad in laga noqdo oo Soomaaliya qaadatay mowqifka caynkaas ah, maxay Soomaaliya ay ka heshay? maxaase ay ilaa iyo hadda arrintaasi iyada ay ku faa'iiday? runtii waxaan isleeyahay horta Soomaaliya wax dhawaaqa dawladdu ay samaysay dhaqankeedu aad u kala duwanaa. dhawaaqeedu wuxuu ahaa dhexdhexaad ayaan ka nahay khilaafka meesha ka socda, laakiin dhaqankeedu waa iska cadaayo dhexdhexaadna kama ahayn, dhinacna waaba la jirtay, mana la gambanayn mana qarsanayn. saameynna dabcan waa leedahay. anagu dal jaamacad 5 ah oo hadda dirirayna 3 ka mid ah waxaan leenahay taariikh aad u dheer oo dhaqan iyo dhaqaale iyo isugu jirta. Imaaraadka oo kale waa dalka muddo dhow waxyar ka hor waxay ahayn dalka ugu badan uuna dhex maro ganacsi dhaqaale. Sacuudigana ilaa hadda waxaan la leenahay xiriirada ganacsi mid isaga ay dhex jira. marka 3daas dalba col bay runtii diblomaasiyan nala ahaayeen sanadihii lasoo dhaafay. marka way dhici kartaa dee in uun hadda isbedelkan si uun looga faa'iidaysto, inkastoo aan ogahay dhaqanka Carabta aan ku aqaanay diblomaasiyaddooda colaadoodu ma ahan mararka qaarkood waa laga yaabaa inay si uun u yara qabowdo, laakiin inta badan ma dhamaad, sababtoo ah dadka ka taliya waa dad weligood jooga oo boqorro ah ama dad xukunka iska haysta, marka ma halmaamaan dadka ay diriraan.
waatahay cabdiraxmaan taasan ka amba qaadaynaaye waxaad tiri carabta ma hilmaamaan oo weli way sii soconayaan marka soomaaliya dhexdhexaad inkastoy sheegatay haddana sida muuqatay imaaraadka waxay u arkeen inay dhanka kale la safan tahayo oo ma qaadan tallaabadii ay markaa imaaraadka doonayeen marka taas weli ma laga yaabaa inay halkaas ka sii socoto arrintii ka timid dabcan waxaan ognahayba haddaba soomaaliya iyo imaaraadku calaaqaad diblomaasiyadeed oo xataa way leeyihiin oo hadda rasmiyan looma jirin laakiin danjirayaal labada dal ma joogaan waa dhowr sano ka hor waa tii diyaarad lacag sida oo imaaraadku lahaayeen dowladda soomaaliya la wareegtay intaan ogahay lacagtaas lama celin imaaraadkuna taasay ay daba joogeen marka waxaa muhiim ah hadda carabtii isdirirtay baa heshiisay dadkii dagaalkooda ka qayb qaatayna lama heshiin marka taas waxaan isleeyahay waxay noqon kartaa qaybta labaad haddii ay dalalkaas ku talagalaan dadkii ay dagaalada soo kale inay isu keenaan oo heshiisiyaan waa yeeli karaan laakiin hadday runtii taas aysan dhicin anugu waxaan isleeyahay waddankeenu waxaa laga yaabaa marka inuu dagaal uu dhinaca qaatay ay saameyn inuu yeesho waa dhici kartaa oo dadka iyo dalka soomaaliyeed uu ku yeesho horena waaba u lahayo waa ognahay oo dowlad goboleedyadii ka jiray iyo arrinta xiriirka qatar iyo sidii loo maareeyey iyo dalalka kale waxay ahayd arrin soomaalidu aad ugu kala aragti duwan tahay waa tahay cabdiraxmaan markaan dhinaca kale ka fiirino wadamada carabta hadda sida khilaafka waa la xaliyo waa la heshiye ayaa la leeyahay markaan dhankooda fiirino shuruudihii badnaa ee aljaziire ka mid ahayd in la xiro iyo waxaas la hordhigay dowladda qatar dhag uma dhigin marka kuwaasi marka xaggey ku dambeeyeen weli wadamadii kale way tuhmayeen shuruudahaas way u baahnaayeen dabcan horta waxaa arrintan ku dhex jiray maamulka waqti uu kasii dhammaanaya madaxweyne Trump gaar ahaan wiilka gabadhiisa qaba oo la taliyan u ah masaalix aan isleeyahay waa kooban yihiin waa uga dhex jireen waxaan isleeyahay de waxaaba dhici karta in arrimo badan hoos looga wada hadlay oo maaragtay dal walbana uu dareemay inaan si fagaaro la keenin ceebtiisa aan banaanka lasoo dhigin waxna la kala goostay hoos loo kala goostay waxaasna hadda cid oguma jirto iyagoo unbaa hoos u og laakiin si guud markii loo fiiriyo runtii waa u roonta annagana waa noo roonta aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan cayte oo heritage ka tirsan iyo wasiirkii hore qorsheentana ahaa waana ka xunnahay in cumar idriis barnaamijka uusan nagala qaybgelin cillad xagga farsamada aafada fayraska corona waxa ay u horsayday dalal badan oo adduunka inay soo rogaan xayiraado dhifka ahaa ee la arko xilliyada dagaalka tallaabada ugu daran ayaa ah in gabi ahaanba la joojiyey dhaqaalahana ay wax weyn saameynna ay ku yeelatay bushra nuur ayaana arrintaasi ka warramaysa adduunka oo dhan sanadkii 2020 wuxuu ka sinaa ereyga xayiraad badanaa dadku waxay u hoggaansameen xayiraadaha balse qaarkood ma aysan u hoggaansamin waxayna abuureen dhacdo kale waa mudaaharaad ka dhan ah xayiraadaha hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in xayiraadaha ay gacan ka geysanayaan inuu hoos u dhaco faafidda fayraska corona marka maxay dadka qaar ku kalifay inay diidaan dhaqaalaha xayiraadaha waxay horseedeen in dadka qaar ay waayaan waxay ku noolaadaan bishii May dibadbaxayaasha iyo booliska ayaa isku dhac wuxuu ku dhex maray duuleedka caasimadda Chile ee Santiago duqa magaalada ayaa sheegay in gaajo iyo shaqo la'aanta jirta ay keeneen qalalaasaha jira madaxweynaha dalka wuxuu ballan qaaday inuu quudin doono dadka saboolka ah siyaasadda mararka qaarkood mudaharaadyadu waxay qabaan nacayb qoto dheer oo ka dhan ah dowladda banaanbaxyadii ka dhacay Serbia bishii Luulyo waxaa kiciyay xayiraad lagu xakameynayay faafitaanka fayraska taasoo ka mid ahayd bandow lagu soo rogay ilaa maalmaha nasashada laakiin waxay isku bedeleen mudaaharaadyo rabshado wata xorriyadda shakhsiga dadka qaar waxay aaminsan yihiin in xorriyadooda aan la xadidin sabab kasta ha noqotee Mareykanka waxaa ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeedo in dhaqaalaha la xiro iyo amarada guriga lagu joogayo dadka ka baqaya fayraska guriga jooga haddii aadan ka baqaynin fayraska samee wixii aad doonto maxaa yeelay taasi waa sida Mareykanka uu yahay taasi waa xorriyadda balse khabiirkan Mareykanka u dhashay ku takhasusay cudurrada faafa waxa uu diidayaa taasi
meesha xirashada iyo xirasho la'aanta afdaboolku ay noqonayso hadal siyaasadeed meesha dad isku imaatinka iyo isku imaad la'aantu ay noqonayso hadal siyaasadeed waxay aad uga dhigaysaa mid adag in la xakameeyo waxa uu noqon lahaa safmar ballaaran xaaladaha ugu wanaagsan wararka been abuurka ah banaanbaxyada ayaa waxaa horseeday warar been abuur ah iyo fikrado mara awaal ah kuwaasina waxay ka dhaceen Mareykanka, Jarmalka, Australia, Ingiriiska iyo wadamo kale oo badan. mudaharaadyada looga soo horjeeda xayiraadaha ayaa ah kuwo badankood ay keeneen kuwo coronavirus fikir mala awaal ah u qaba halka ay jiri karaan dad kale oo walwal dhanka sharciga ah ka qaba xayiraadaha tusaale ahaan saameynta ay ku yeelan karta dhaqaalaha ama caafimaadka maskaxda ee dadka waxaan aragnaa waxyaalo badan iyo dad faafinaya hadallo halis ah oo been ah oo ku saabsan safmarka hay-adda caafimaadka adduunka waxay qaraysaa saameynta xayiraadaha ee nolosha bulshada iyo dhaqaalaha laakiin sidoo kale waxay aqoonsan tahay in wadamada qaar aysan lahayn wax dooq ah oo aan ka ahayn inay soo saaraan amarro gurjoog ah iyo tallaabooyin kale si ay waqti ugu iibsadaan talaalada waa la ogolaaday laakiin weli lagama heli karo meelo badan xusuusna wararka ugu dambeeya ee BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali haddana toos ayaad YouTube-ka inooga daawanaysaan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawiya caalamka waad ku mahadsantiin daawashadiina intaan habeen dambe xilligan oo kale dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa nabad gelyo